بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله محمد وصحبه أجمعين. أما بعد waxa aan u mahad celinaya Allah koonkan iska leh oo mulkigiisa yahay noo saaray inaan halkan soo nimaano waa safarkii sanadlaha ee Noor Foundation iyo Norway Oslo magaalada caasimada Oslo waxa kula kulmay jaaliyadii reerka oo aan insha Allah qof kaalmada ugu qaban doono waxa ugu horeeya jaaliyada oo geeska u xiga adeer Maxamed Filfil سكن وحكوا حاجة عبد الرحمن حسن جيري لمبر صدح وحكوا حاجة محمود وطان عرس يوسف وطان عرس صار أقول جالس يوسف وطان عرس وياه لمبر أفر وحكوا حاجة عبد الرحمن علي عبد الرحمن عابي عمر لمبر شن أحمد عبد الله أبشر لمبر لح سالة حاج محمود لمبر تدبا محمد موسى سعيد لمبر سداد محمد فارح رومانة لمبر سالة دكتور مصطفى سعيد ياسين لمبر تن كورنيل عبد القادر أحمد عبد الله intaasi waa odayaashii insha Allah xagga kaamirada waxaan naga taageerayaa محمد عبد الرحمن iyo Mursal Xasan Barwa insha Allah taala waxa way galabtay taariikhdu insha Allah 23 bishii Abriil oo aan joogno Oslo waxaan u mahad celinayaa sida sharafta badan oo ay soo dhaweeyeen ilaa marka magaalada imi waxaan siinayaa wixii tala ah oo ay Noor Foundation ku beerinayaan iyo waxa ay bahalkeenayaan teeda kale waxaan u sheegay oo u gudbiyay oo telefoon kula xiriiray chairman-kii hay'adan waxaanuna isla garanay in ay soo gudbiyaan qismka ay ka qaadanayaan lacagta sanadka laga rabo Europe oo $35,000 marka laga reebo $5,000 oo jaaliyad magaalo la yiraahdo house oo ku taala Denmark laga reebo iyaguna waxay sheegeen inay lacagta ay qaadanayaan soo gudbinayaan haddana kaamirada waxa ku jeedinayaa adeer Maxamed Cali oo runtii aan rabo inuu dadka u sheego wacyigelinta ku saabsan organizationka iyo waxa looga baahan yahay tafadal mashkuur بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد waxaan halkan mahad celinaynaa ilaah baa mahad iska leh yaasiin faarax yaasiin dalmar oo nooga yimi arliga ingiriiska wakiilna ka ah xubinna ka ah ururka Noor Foundation oo noogu sharaxay waxyaalihii ay qabatay isagoo oo nagu tusiyay practice ama waxyaalaha alaabada la iska daawado TV-ga sidaa darteed waxyaalihii ay qabatay aad baan ugu faraxnay waxaanu rajaynaynaa in insha Allah inay inta iyo in kasii badan ay sii qabtaan oo ay arrinta sii wadaan dadka ku abtirsada deegaanada ay wax ka qabanaysana waxaanu u rajaynaynaa inay ka gacan ka geystaan ilaa wixii ay ka qaban karaan sidaa darteed marka wixii annaga nagaga soo toosay reer Norway ahaan waxaanu kusoo gudbinaynaa markii ay taariikhdu tahay sida ugu dhasaha badan muddadii uu noo sheegay ka hor intayan dhicin insha Allah billahi kariim oo billahi tawfiiq كله waxaa ku xiga Cabdiraxmaan Xasan Geere oo nickname-kiisa ama ism mulaqabkiisa la yiraahdo Gambar fariid tafadal بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa dhamaan dadka ka soo qayb galay xalfadana aad loo soo agaasimiyo sharafta badan waanu ku soo dhaweynay Faarax Yaasiin oo noogu oo ka yimi Ingiriiska arrimaha uu u socdana ay tahay Noor Foundation in uu soo gaarsiiyo hawsheeda in aanu markaa arrintaas la qaadanay una soo dhaweynay aadna ugu farxanay tallaabadaas ay qaadeen oo hadda ka hor aanu ka jeclayn inayna soo gaadho waxaanu ku faraxsanahay
habka loo qaatay iyo sharafta ay soo hoyeen. arrintaa dhacday waqtigan xaadirka waxaanu diyaar u nahay in aanu sida ugu dhaqsiyaha badan aanu u bixino lacagta aanu go-aan ka soo gaaro qaybtii aanu ka qaadan lahayn magaalada Norway. saa darteed annaga oo sida ugu dhaqsiyaha badan muddadaas uu qabsaday oo bisha 14 inaanu ka soo hormarino haddii ilaahay idmo. assalaamu calaykum waraxmatullah. جزاكم الله ألف خير الجزاء إن شاء الله قنبر وأنا رد صاحبكي waxaan rabaa inaan dadka brief yar halkaa ka siiyo. anigu 1980 waxaanaha ardaydii ka baxday dugsigii cali faahiyegeedii isla markaana waxaa imtixaankayagiina loogu soo wareejiyey magaalada baladhinin oo beriga aada u yarayd oo sida hadda aanu ku baxsanayn. marka waagaasaa barashada igu horeysay isaga maaragtay inaan isbarano ilaa 30 sano ayaan isna waana ku faraxsanay saaxiibkii sida noo soo dhaweyn master cabdiraxmaan xasan geyle. kollay annaga laftigeeda odayaal baana haddaan halkaa ka hadlayno waana ku faraxsanay ilaa cimrigana siiya baa ku mahadsan. waxaa ku xiga lambar thani yuusuf bootaan caris falyatafadal mashkuura. بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع عالمي مهم aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaadano. qof kasta oo ku abtirsan reerkaana waxaan ku baraarujinaynaa inuu isagana u ka qayb qaato wixii awoodiisa. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله ألف خير إن شاء الله. waxaa ku xiga شيخ محمد موسى سعيد فليتفضل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي جمعنا في هذا المكان المبارك. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا عملا متخلصا خالصا متقبلا لوجهه الكريم وأن يوفقه وأن يوفقنا جميعا لخدمة إخوتنا ولخدمة الإسلام إنه ولي ذلك القادر عليه. وآخر دعوانا صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. waxaa ku xiga إن شاء الله isagana fadhiya محمد فارح دومنة فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد aad baan ugu faraxsanahay imaantikaan soo booqatay oo noogu timi Norway. Farax Yaasiin Dalmar oo ka socday Noor Foundation annagoo ah beesha iyo bahda Cali Salebaan ee ku dhaqan dalka Norway gaar ahaan magaalada Oslo. marka hore waa ku mahadcelinaynaa. marka xigta Noor Foundation waxa qabadkiisa horena waa u aragnay gadaalna waa u arki doonaa insha Allah biidhnillaahi kariim. insha Allah annagu waxaan diyaar u nahay wixii aan qoondeysano oo annagu qaadi karno insha Allah sida odayaashu ay sheegeen xilliga aan noo qabatay inaan ka soo baxno oo aan warbixin jawaab aan naga heshaan haddii alla idmo. mideeda xigta waxaan insha Allah leenahay inay inagu isku tashano oo beel wax qabsato oo dadkeeda iyo dalkeeda wax tarto oo insha Allah biidhnillaahi kariim in ilaahayna ka dhigo. aad baan u mahadsantahay Farax insha Allah diyaarna waan. assalaamu calaykum. إن شاء الله waxaa ku xigaya الأخ دكتور مصطفى سعيد ياسين فليتفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. marka ugu horeysa ilaah waa mahad iska leh. marka labaad chairman Yaasiin Farax Yaasiin Dalmar oo hadda socdaalkiisaan nooga yimid Denmark laakiin asalkiisu reer Ingiriis ah u socday qorshe u socdayna uu ahaa Noor Foundation wareeg ugu maray Yurub dhexdeeda isagoo hawla dhaqaale macnaha ka wada. waana ku faraxsanahay hawshaas uu isu xilqaamay oo uu noogu yimid oo waqtigu kaga baxay. waana ku mahadsan yahay. waana ku faraxsanahay Noor Foundation iyo qaabka ay wax u wado iyo hawlaha ay hadda wado iyo wadankii
macnaha nidaamka guryaha iyo iskuullada iyo waxqabadka ee wadankii ka wadan aad baan ugu faraxsanahay gebi ahaanna waa wax lasoo dhaweeyo oo macnaa mudan in lagu farxo waxyaabaha noocaas oo kale ah haddaan nahay beelweynta Cali Salabaan ee ku dhaqan wadanka Norway gaar ahaan magaalada Oslo qaybtana la kaga talagalay iyo ka badanna waa keenaynaa xilliga aanu qabsanay waana islaamaya dhammaantiin aad baa u mahadsantahay jazakum allahu khayr insha allah waxaa ku xiga insha allah Cornel Cabdulqaadir Axmed Cabdallah tafadhal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أنت ماشي فريدة قارهان لك كيرم فارح مرتل نوع أدبا وسلام هنا وحكرو سجارة وسلام هنا دمان ضدك أساسي نور فونديشن وموقعته إنه كبر لابين أساس كديجين وحبرشدي أي تاي وح مهمة وكنتي وح فرحة arrintaasna aad baan ugu mahadinaynaa wixii tabarana waanu ka qayb qaadanaynaa haddaan nahay reer Oslo iyo reer Norway intaba markaan kaliya maaha mar kalena waanu isbarar badan oo dambana waa is arki doonaa haddii alla yiraahdo waana idiin hambalyeynaa dhammaantiin aad baa u mahadsantiin gabdho ma aysan joogaan irbitinkan ma imaan laakiin reer Norway waa dad isku xiran oo organization ah oo isku mid ah gabdhahana insha allah jaaliyadaha ka soo jeeda waxaan insha allah iyagana fariinta qoladan ayaan ugu dhaafaynaa waa Faarax Yaasiin Dalmar Oslo Norway. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.